السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو جنالك برو اي سي تي اي تي وتي 10 او ني هلكاس ان كسي ودنا si toos ayaan u geli doonaa practicada hadduu ila yiraahdo waxaa inoo kacsan waa serverkii ood ujeedaan Eh, hadduu ila yiraahdo maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo sameeyo maaragtay backupka ama markaa data aad rabtid markasta in ay computer kale ama meel kale ay ku shubmaan qaabka lagu shubi lahaa iyo waqtiga aad ugu baahan tahay in maaragtay serverka uu sameeyo backup marka waa ila soconaysaan si practical u gelaynaa practical gelaynaa hadduu ila yiraahdo qaabka loo sameeyo marka backupka waa in aad backup service aad kusoo darsataa halka maaragtay halkan ayaad tegaysaa manage add rules and features ayaad click ku leedahay kadib next ayaad dhihi doontaa kadibna next hadda waa ujeedaan hore ayaan active director u sameynay DHCP ga hore u sameynay DNS ka hore u sameynay printerkii hore u sameynay marka waa in halkan qaybta kale oo featurekan ayaa tegaynaa marka waxaan ka fiirin doonaa backup windows backup server windows server backup kaas ayaad dooran doontaa kadib next installka markuu noo dhameeyo kadibna waxaan tegi doonaa tools kadibna halkaas ayuu hadda tools kuma jiro windows backup marka halkaas ayuu noo soo gelayaa marka windows backup ayaan tegi doonaa halkaas windows server backup halkaa markaan joogno waxaan tegi doonaa backup switchable meesha ku qoran tahay ayaad click ku leedahay kadibna wizardkan ayaa ku imaan doona next ayaa dhihi doontaa kadibna full server recommended custom ayaan leenahay customka ayaan iska dooranayna halkaas customka kadibna meesha aan rabno in uu backup ka sameeyo ayaan add items aan leenahay intee rabta marka inuu backup ka sameeyo tusaale ahaan eeda ayaan ku sameynay userska ma xasuustaan eeda oo data aan u sameynay userska nodor marka wax kale uma baahna in wixii aan userskii oo maaragtay shareskan abda wixii la share galayna sidoo kale aan ka dhigno in ay backup noo sameeyaan waa tii shareskan u sameynay maaragtay macallimiinta iyo waxaan ku dhahaa maamulka iyo wixii ay isku maaragtay wixii data ah dhan in wixii userska ku jiro oo in uu maaragtay inoo sameeyo backup next ayaan dhahnay tii markii ugu horeysay intaas markuu halkan ku imaado next ayaa leedahay kadibna waqtiga aan maaragtay update ka sameynayna habeenkii ayaa ugu fiican waqtiga 4 saacba ka dhigo oo habeennimo PM waa habeennimo soo ma 4 saac ayuu noo sameynayaa backupkaas marka next ayaan dhihi doonaa kadibna meeshaan backup recommended meeshaan ay ku qoran tahay backupka maaragtay waxaa ka fiican in backup halkan aad volume maadaama custom aan soo dhaanay kan inuu wixii dhammaan inuu noo soo maaragtay kan ayaa dooranaysa hadduu ila yiraahdo kadibna meeshaan add ayaan leenahaa maaragtay intuu noo yaalaa marka waxa dhan waxay noo yaalaan c soo maha c next oo ujeedaa finish kadibna backupkii ayuu noo sameynayaa kadibna cancel backupkii ayuu noo sameeyey halka detailska halkan noogu sameeyey
backup item oo meesha laga soo qaadayo d waa a waa noo ahaa waa xasuustaan maaragtay markaad tagtaan ida aan soo sameyno datada wax kasta datada noogu jira macalimiinta iyo shares userska waxa halkan ku jira dhan ayuu maaragtay ayuu sameyn doonaa oo wixii data dhan ayuu backup kugu sameynayaa saacadda markii la gaaro 4 saac habeenimo aan dhahnay kadibna copy backup ayuu sameynayaa wax kasta aad sameyso maaragtay originalka meeshan kugu jiraan laakiin wixii isla wixii ayuu copy kaaga sameynayaa si aad back mar kale maaragtay backup waxaa loogu talagalay wax kasto maaragtay data ah in aad datadii halkan aad ku haysato wax kasta iska dhici karo maaragtay processorka ama maaragtay hard diska ayaa halaabi karo ama virus geli kara ama waxyaalo badan soo weerari kara ama maaragtay saas daraadeed inay wax kaa dhumin shirkadda wax ka dhumin ama jaamacadda ama iskuulka ama ganacsiga wax kasto aad sameysanayso backup waa muhiim ah marka serverkan wuxuu kuu sameynayaa sidaas backupkaas ayuu kuu sameynayaa hadduu ila yiraahdo marka casharkeena maanta uu iska kooban yahay intaas ayaan kusoo koobi doonaa backup qaabka loo sameeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا شير جراي سبسكرايب صار ودينا السلام عليكم